waxaan saaka u qalab qaatay sidii warbixin aan uga soo diyaarin lahaa xubinta ugu hadalhaynta badnayd maalmihii aynu soo dhaafnay gudaha magaalada, taasi oo noqonaysa khilaafka soo kala dhex galay wakiilada maraakiibta ee xafiisyadooda ku leh magaalada Berbera iyo wasaaradda ganacsiga Somaliland, iyadoo goobaha barkulanka ay bulshada ay isugu timaado si weyn loogu falaaqeynayay habab ku kala aragti duwanaadaane. Waxaan mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada xeebta Berbera, waxayna cabireen dareenkooda ku aadan amuurtaasi. Sidoo kale waxay bogaadiyeen wakiilada maraakiibta Berbera ee qaatay awaamirta xukuumadda haatan talada haysa, waxayna ugu baaqeen xukuumadda inay hoos u eegto cabashooyinkooda. sidoo kale waxay carabka ku dhufteen in wakiiladani ay ka shaqeeyaan isku xirka Somaliland iyo seeladaha adduunka, waxayna muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo xidheen marsada caalamiga ee Berbera maraakiib aan hore iyagu u iman jirin, waana kuwan iyagoo ka hadlaya amuurtaasi. haddaan nahay odayaashii dhalinyarada gobolka saaxil gaar ahaan magaalada Berbera waxaanu soo dhaweynaynaa arrintii ay wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga iyo dalxiisku ay fulisay amarkii ay bixisay iyo inamadii agensiga haaya amarkii dawladda qaatay. xukuumadda waxaan u sheegaynaa horta waad mahadsantahay amarkiina iyo amaamirta dawladda waa inay shaqeysaa, waanad ku mahadsantahin waa shaqadiina. inamadan cabashadooda hoos loo eego oo hoos loo eego ayaa wanaagsan. cabanayeenoo cabasha ay jirtay haddana cabashadii markii imika ay qaateen amarkii waa in cabashadoodii baato hoos loo yar eegaayo dikooyiguna shaqeeyayaan wasaaraduna shaqeeyaysa marka bal in sida xeegan hotelka u nabad galaan koona shaqadoodii ay si wacan ku socoto wasaaradda shaqadeeda si wacan ku socoto bal waa in ay labada dhinacba isla munaaqashaano meel wacan wax isla dhigaan qolada amarka qaatayna aad iyo aad. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan ka hadlayaa khilaafkii maalmihii dhaweeyay taagnaa ee soo dhex galay qolada Shiibilaynka iyo wasaaradda ganacsiga, waxaan maanta aad iyo aad u soo dhaweynayaa qolada Shiibilaynka oo maanta shaqadii bilowday. oo waxaan leenahay qoladan shibinka hoos loo eego darinkooda xukuumadda amarkeedu way qaateen, mar haddii qaateen cabashadoodu waa meel la eego wixii cabashay la yimaadaan iyagana hoos loo eego. waxaan leeyahay wakiilada iyo ganacsiga laftoodana waxaan leeyahay wada dadkii kamid ah oo mujtamaca reer Somaliland waana dadkii markaasay dalka ganacsanay iyaga laftoodana yaan la caburin inay tooda hoos loo eego. iyagana waxaan leeyahay u hogaansanaada amar kasta oo ka soo baxay xukuumadda Somaliland. waan mahadinayaa Shiibilaynka iyo ageensiyada aad baan mahadinayaa amarkii dawladda ay qaateen darteed. dhinaca dawladdana waxaan leeyahay hoos loo eego, nimankaasi waa nimanka inagu xidha bulshada, inagu xidhaya caalamka inagu xidhaya iyo ganacsiga, marka waxaan leeyahay aadan loo tixi nimankan arrinkooda in hoos loo eega wasiirku bay ku fiicneed. waxay ka cabanayaan inuu tixgeliyo ayaduna eegan dadweynaha iyo ka tashriibka ilaahay baa mahadle. waxaan leeyahay waan hambaliyeynayaa nimankan furay xafiisyada, waana ku mahadsan yihiin markay amarka dawladda qaateen. waxay isku xidhaan nimankani geeska Afrika dekadihiisa oo dhan bay keenaan wadanka in hoos loo eego iyaga laftooda way loo baahan in ay hoos u eegaan xafiisyada Shiibilaynka cabashadooda inay hoos u eegaan ayaan dawladana ugu baaqayaa. sababtoo ah waxay ka qayb qaateen seeladaha caalamka, waxaana ay soo kordhiyeen waxay ku soo xidheen dekada Berbera ee marsada Berbera waxay ku soo xidheen maraakiib aad iyo aad u fara badan oo sidoo kale waxaa irdaha loo furay xafiisyadii maalmihii aynu soo dhaafnay khilaafkaasi u xidhnaa wasaaka iyagu si toos ugu shaqeynayay qaadiyeyna lacagtii tacriifada ahayd ee hore u qaadi jireen. waa Cabdirashiid Mubarak Cabdi, Cabdirashiid Suur, Dalsan TV, Berbera.